Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu asxaabta soo dhawaada. Maanta waxaan ila sheer gareynaa baasto aad u macaan badan oo casho u suubsan kartid ama qado oo healthy ah oo ilmahaadana aad uga helayiin. Maasha Allah, waxaa ku jiro qudaar, maasha Allah, barbanooni laba nooc ah. Waxaa ku jiro peas, chicken, asparagus, caadi ma ah. Maasha Allah, marka insha Allah waxaan ila sheer gareynaa sidaan u suubiyey. intaan waxa u baahan tahay insha Allah marka waan kala sheegaa wuxuu yahay. Waxa meeshaan ii saaran baastada noocaan waa taqaaniin, iyo waxa meeshaan ii saaran sweet peas ama digir hadaad saas u taqaaniin. waxa kale ii saaran filfil, roasted chipotle ama chipotle caadad ku yaal waa shiida kartaa. markaas noocaan isticmaaloya ani. waxaa kale ii saaran maxaa la dhahaa heavy whipping cream waaye, caanaha oo cuntada iyo waxba lagu daro waaye, keega macaanka. barbanooni ii saaran laba nooc, asparagus waa kan, basal iyo laba xabo tuun ah. yani shiishiidkan iga hilmaaminay tuso meesha soo saaraa hilmaamay, iyo cusbada. marka labadaasna u baahan tahay. chickenka waa kaas, malaay ama chicken iyo waxaa isticmaal kartaa hilibka noocii oo jeceshahay. asparaguska soo jarjaray waxaa ku shubay digsi yaris, and then gooniya u karinaasi because inaa isku dhex kariyo marabi. wax yaris leel rabaa inaad biyo lagu kariyo soo jilaac yar u noqdo oo soft ah, like 10 minutes camal leel rabaa. baastadan intaas sii saaray waa kaas. wax yar saliida ku daray olive oil sida iskugu dhegin. waa kaas intoo cusbana waa ku daraa. so baastada sii karinooya hadda. meeshaan waxaa ii saaran barbanooni laba nooc oo jarjaray, wax yar lee waaye half, and then basal iyo digirta. kaas digirtan hore lee oo karsamaa dhaqsi maadaama already jilaac iska yahay. bararkiya hadda dhilaalinooya wax yar oo jeedin saas yaris ah waaye, at least hal qaado iyo bar camal waaye meelahaas. waa kana asxaabta waa dhilaalay. marka waxaan ku shubaa hadda basashii. basasha wax yar mala gaduudinayo, yani just a little bit saute leel rabaa because inaa lagu cunaa loogu talagalay. maxaa la dhahaa baastada. marka long time inaa saarnaada mal rabo, wax yar lagu haynaa dabka. waa kaas barbanooniga waa ku kor daray iyo peaskan waa kusoo daraa insha Allah. waa kaas waxay wili frozen waa ujeetiin, laakiin time badan ma qaadanayo bano. bararka flavorkiisa saan ugu dhex qasooyaa, and maxaa la dhahaa kabacdi wax ku daraa cusbo yar iyo filfil. waqti badan ma qaadanayo, at least 5 minutes camal waaye. waa kaas filfishii iyo cusbo yar ku daraa. salt and pepper ma kala haraan. kaas inuu wax yar ceeriin ahaadaa la rabaa, at the same time inuu zaaid u karsamo ma la rabo, soft inuu kaa noqdo wax yar. maadaama qudaarta saan lagu cuni karaa soo ceeriin ah ama soo karsanba, noocyadan waa la cun karaa except digirta inaa wax yar la kariyo waaye. waa kaas diyaar oo noqday, ma la gaduudinin oo jeediin. waa kasaanoo diyaar ku yahay. waa kaas isla taawadii la waaye ama digsigii. waxaa ku shubaya olive oil ama saliid saytuunka. hadduu kaas ku yaalin just saliida caadiga waa isticmaal kartaa. basashii wax yar ku harhaaray waa ujeedin, laakiin dhib ma lahan. waxaa dhan waa lagu soo kor daraa markii la kariyo kan.
chickenka waxyar karinaa waakana waxyar markuu saarnaa 1 daqiiqo camal oo maleynaa cusbo yar ku daraa iyo sina filfil markaas waxyar paprika hadda xawaaji oo jeceshahay waa ku darsan kartaa xawaaji waxyaalaha oo ku yaalo oo carafta oo cuntada dhadhanka u yaalayo dhan waa ku darsan kartaa laakiin noocan saana lagu talagalay chipotle waa ku daray waakaas 2 qaad camal qiyaastiisu ahay 2 tuna aan ugu daraa intane raali noqda kaamira hal gacan ku haya marka waxaa la rabaa mindi ama qaado saan loogu jaro kasoo baxaa ujeedin kii tunta lagu soo riixay waaye markaas diyaar waa chickenka marka heavy cream ah ku daraa waxaan igin inaan ku daro yaan shiishiid 1 qaado ilaa 2 qaado le waaye loo baahan yahay qudaartii waakaas hadda ku kor daray maadaama wixii diyaar yahay asparagus-kii hadda ay karinayay waakaas waa diyaar waxaan kor daraa ka bacdi baastadii oo ku daraa tartiib isku qasooyaa sidoo baastadii wixii dhan isku dhex gaaro 1 daqiiqo kaloo saarnaana diyaar waa markaas waa kana asxaabta sidaan oo nagu soo baxay maasha Allah cheese ku kor darooyaa intuu kuleel yahay parmesan cheese noocii rabtida cheese ku darsan kartaa waakaas qudaartii wixii dhan kulli waa la isku cuni karaa hadda maasha Allah casho iyo qadabo subsan kartaa waakaas asxaabta si gaar ah loo suubiyo marka kuwii kale waa ka duuban yahay maasha Allah quality-ga oo maqaayada lagu cuno kale waaye maasha Allah saas uu soo baxay hadda chicken jecleen malaya gooni u dubo kartaa kor u shubi kartaa also insha Allah asxaabta hadda ka hesheen like riix hadda ku cusub tahay channelkayga please subscribe asxaabtaada kale ula share gareeya insha Allah waxaas cagaarka ujeedina waa kabsar caleen insha Allah marka jazakallahu khair sida mar walba ila socotiin aad iyo aad aan iigu mahad celinaa thank you so much for watching